qaar ka mid ah dhalinyaro ka soo jeeda gobolada Saraar, Saaxil iyo Togdheer oo gudaha magaalada Hargeysa kulan warbaahineed ku qabtay ayaa waxay ka hadleen mashaariic macdan baadhis oo wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland ay ka wado deegaano hoostaga goboladaasi waxayna dhalinyaradani sheegeen in xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah ganacsatada iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaanadaasi kadib markii isfahan waa ka dhaxdhashay mas'uuliyiinta mashaariicdani horkacaysa iyo waliba dadka deegaankaasi ku nool waxay xukuumadda iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland ugu baaqeen in dib u eegis lagu sameeyo mashaariicdaasi isla markaasina la raadiyo xal degdeg ah iyadoo laga talagelinayo dadka deegaanadaasi ku nool waxa kulankayga daaran yahay arrimaha ka soo cusboonaaday deegaanada ay ka midka yihiin Faqayub iyo Calbaxay oo muddooyinkii u dambeeyayba arrimo xasaasi ah ay ka jireen oo xukuumaddu inteeda badan ay aad iyo aad waxa weeyaan ugu tagrifashay awoodii dawladda una adeegsatay shacabka arrimo aan munaasib ahayn ama aan ku habboonayn isla markaana imanka ay bilowday in maxaan ku dhahdaa ay xidho waayeelkii iyo waxgaradkii deegaanada waxaanu ku baaqaynaa annagoo ah dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada xukuumadda in arrinta ay xal degdeg ah ay ka qaadaan inta badanna waxa weeyaan waxa gacanta kula jira dadaan deegaanka u dhalan ama aan matelin taasoo keentay in ay kacdo imanka markii mashaariicda macdan qodis laga bilaabay oo ay ahayd dadkaas in lagu waxa weeyaan loogu bedelo waxa khayraadka laga helay dalkooda ama deegaankii Ilaahay ku beeray waxa weeyaan loogu bedelo mashaariic horumarineed deegaanada waxaynu ogeyn in dhawid waxa ka socday mashruuc macdan baadhis ah oo shirkado ajaanibihi ka howlgalayeen waxaan horta marka koobaad cambaaraynaynaa dadka waxgaradka ah ee cuqaasha iyo waayeelkaba leh deegaanada ka soo jeeda la xidhay deegaanka Faqayub lagu xidhay aad baan u cambaaraynaynaa khayraadka dabiiciga ee dalka dawladda maamulaysa mas'uuliyadda leh waxa laga soo reebay qaabka ay u maamulayso khayraadka dabiiciga xeer baa qeexaya xeerkii qeexi lahaayay in la sameeyo ahayd waa horana inaan la sameyn baynu ognahay markii la isku dayay dawladdu wax soo farsamaysatay waxa weeye wax isku soo jacbursayna baarlamaanku uu ka diiday marka waxaan u aragnaa howlgallada halka ka socday deegaanka laga wada inay yihiin hal xaaraan hinig xalaal ma dhasho waxa weeye waa sharci daro dadka deegaanka waxaan u soo jeedinaynaa nabadda idinka ku nool kol hadaynu aragnay kuwii nabadda ilaalin lahayn inay nabad ka shaqeynayaan waxa weeye qas ka shaqeynayaan inaydu nabadda ilaalisaan deegaanka waxa laga wada horta waa fawdo wasiirku waxaanu arkaynaa maalin dhowtay soo goodiyaya oo hanjabaya wuxuu ka hadlayay oo lahaa dadku nimanba waxa la sameeyay kooxo hubaysan buur baa la saaray wasiirku waxaan leenahay horta sharci darrad ku socotaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne dee anagoo sidaan kugu lisnay aad ogeyd deegaankan la doonayo in awood dawliga lagu baadhaa horta waa deegaankii Faqayub walibana cuqaasheedii iyo odayaasheedii xireen horta waa deegaankii ka soo jeeday Suudaan guud ee beelaha Habar Jeclo Suudaan Cabdilaahi Suudaan Cali waxaana gabi ahaan meesha ka maqan ciddii deegaankan matalaysay barasaab baan ku lahayn xukuumaddii Siilaanyo iyo wasiir baan ku lahayn taliyaal baan ku lahayn waxa la xitaa taliyaashan ku lahayn qaybadeedana ku lahayn waa laga wada qaado arrimaha deegaanka ayaan ka hadlayno runtii inta badan arrinkoodu soo noqnoqday imikana ay u xidhan yihiin caaqil baashe iyo khadar sayre oo ganacsada ah codsiga koodbaana weeyaan xukuumadda u dirayno in si degdeg ah loo sii daayo iyo inamada loo hanjabaayay ee waxa weeye xalaal waxay geystaan jirin in xataana laga digtoonaado nimankaana la soo daayo shirqsa loo soo daayo waa codsigan u gudbinayna xukuumadda waxa weeye xal baa loo baahan yahay in xukuumaddu xal degdeg ah la timaado se waxa weeye haddii lagu adkaysto xukuumaddu waxa weeye wasiirkuna oo ku baama ciidamada ma geenaya ciidamada cadowba u sameeysan oo dhalinyaradu cadowba ciidamada qoriga u sitaan shacabka uma sitaan awoodaha la adeegsanayo ee ku takrifalka aan la ogolayn lagu xirxirayo haldoorkii deegaanka sulaxa loo adeegsan lahaa nidaamka loo adeegsan lahaa lagu xirxirayo ganacsatadii lagu xirxirayo waxgaradkii lagu baacsanayo aqoon-yahankii maanan garan kulley dee dawladduna garashadeeda iyada hadday qeexi doontaa waxaan u malaynayaa dee inay iyagu isleeyihiin awood ciidan baa wax ku soconaya laakiinse waxaan u sheegaynaa inaanay awood ciidan wax ku soconay ciidamada wasiirku afkiisa soo mariyay uu leeyahay ciidamada la abaabulay inaan waxba ka jirin
laakiinse dadku ay hantigooda asadka ilaahay ku beeray oo ay ilaashanayaan ay difaacan doonaan haddii ay ka fursan weydo laakiinse ay diyaar u yihiin in waxaan xalkoodii iyo nidaamkooda lagala dhiskaskareeyo iyadoo loo marayo dariiqada shareecada iyo nidaamka sharciga ee dastuurka qaranku uu dhigayo. Axmed Siciid Xasan, Axmed Shimaali, Ariel TV, Hargeysa.